War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa waxaa looga hadlay dad Soomaaliyeed oo xarig wadareed loogu geystay magaalada caasimadda ah ee Indoola ee dalka Zambia, kuwaas oo siyaabooyin kala duwan halkaa loogu xiray. Hase ahaatee, qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in si dhow dowladda Soomaaliya ula socoto warbixinta sheegaysa xarig wadareedka lagula kacay dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Indoola ee dalka Zambia, isla markaana ay aad uga xun tahay tallaabadaasi loo qaaday dhanka dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Indoola ee Zambia. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa qoraalkeeda ku qeexday in dadka Soomaalida ah ee la xiray loo beegsaday hab sir ah iyadoo aan loo eegin dhalasho ahaan, isla markaana arrintaas ay tahay mid ay aad uga walaacday dowladda Soomaaliya maadaama dadka Soomaaliyeed si sharci darro ah loo xiray. Wasaaraddu waxay si dhow ula socotaa warbixinada sheegaya xarig wadareedka lagula dhaqaaqay dadka Soomaalida ah oo ku nool magaalada Indoola ee dalka Zambia oo loo beegsaday hab sir ah iyadoo aan loo eegin dhalasho ahaan. Waa arrin walaac ku abuurtay dowladda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya. Ugu dambeyn, wasaaradda ayaa tilmaamtay in ay ku howlan tahay sidii caddeymo sax ah loogu heli lahaa dadkaasi xabsiga ay dhigtay dowladda Zambia, loona xalin lahaa in si degdeg ah ay uga jawaabto dowladda Zambia tallaabada sharci darrada ah ee ay ku xirtay dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi. Cabduqaadir Maxamed, wararka SB TV, Muqdisho.